qalbigiyo waxay maqan asadihi jidkayge aabe maqumani yahay bixin waa qof niyad wanaag u dhalatay ruuxan garabkeeda joogase niyadu ma hayso waxa ay joogtaa xeebta liido indhahan maskaxdu la jirin ayay ku eegaysaa ilka soo maqiiqan ee aad moodo inuu iyada u soo farabaxsanayo gardarro ayay u qabtaa laydha foolkeeda hadba dhan u jiidhaysa sida wax walba oo nolosheeda ku dhacay ay gardarro ugu qabto waxa ay la socotaa barbaar ma ay jecla iyadu dhankiisana ma hubto kamaba ay fakerin laba aan iscalmo wada joogooda marka ay u yar tahay mid baan raalli ka ahayn sidaasoo ay tahay inta jeer ee laba aan ismudani dhinaca isa saaraan ma xisaabna asalkaba sida dadku doonistooda ugu halgamaan cirib dambeedkoodu uma cadda rajadeedii cagaarnayd waxaa herdiyey quus niyadeedii xallayd ka dhigtay gelgelin waxa maankeeda iyo laabteeda ka aloosan guluf aan ka yarayn dagaalkii soom ee ay huwantii britishka iyo faransiisku ugu jilib dhigeen jarmalka oo lagu tiriyo iska hor imaadyadii ugu dhiiga badnaa taariikhda basharka waxa ay ku hungowday wiilkii ay jeclayd oo geeridiisa bil ka hor lagaga nixiyey waxa ay la socotaa ninaysan aqoon oo aabaheed ku daray walow loo soo bandhigay haa iyo maya toonna iyada kama soo noqon raalli kama aha oo ma rabto balse inay tuhantay doorasho eebba siin waayey in aabaheed siin karo iyo in qalbi jabku aamusiiyey midoodba waa la saadaalin karaa waa qof maqan oo isla si quman uma fakarayso oo maskaxdeeda waxa ku furan 100 isdiido isku mar ayaa ay qadarta xorriyadda iyo dadnimadu madaxeeda yar ku garamayaan in maankeeda iyo jirkeedu laba nin u qaybsami karaan bay isweydiinaysaa waxa ay saqiraysaa in xiriir aan laga boodi karin ka dhaxeeyo soo waxa maanku diido walaac lagama qaado walaacuna soo jirka xanuun kuma keeno ayaa ay isku naqdinaysaa horta doorasho ma leedahay ayay isxansanaysaa doorasho ha joogtee nin aadan dadka eebbe ka aqoon sideeba guurkiisa lagugu soo bandhigi karaa ayay isweydiinaysaa way ogtahay in raalli ahaanshaheedu uu yahay shuruudda ku xidhan meherka oo haba yaraatee aanay cidina xaq ugu lahayn jujuub aabaheed bay hiifaysaa oo inuu ra'yigeeda boobay ugu ciishoonaysaa dhowr soonideedii iyo wanaaggii ay samayn jirtay bay dib u milicsanaysaa oo miisaamaysaa xusuusihii gacaliyaheeda ay ka haysatay ayay ku banjaraysaa sidii uu ugu naxariisan jiray ayay ku dheeraanaysaa gobonimona ugu qaraysaa ballantii uu ka qaaday inuu aroosi doono 4 bil kadib ayay ku hungoobaysaa eebbe ma laayaco abaalka kuwa wanaagsan aayadaas oo ay maqalkeeda ku raaxaysan jirtay ayay dhadhan ka waayaysaa way iscelinaysaa oo garaad weydiimo la ciirciiraya iimaanka baadhaysaa garaadka laftiisa ayay eedaynaysaa oo in eebbe nolosha dambe ku hagaajin doono isugu bishaaraynaysaa mar kale ayay qadarta dhimashada gacaliyaheeda ku qaamaynaysaa waxaase dabraya in qadarta lafteedu isbartay labadooda maalin oo baskii jaamacaddu ka tegay ayuu gaadhigiisa ku qaaday sidaana ay isku barteen marnaba maskaxda kuma aysan hayn kumana aysan talagelin in basku ka tegi doono hadduu ka tagana ay raaci doonto gaadhiga kamaal jacaylna ay wadaagi doonaan aadkeedaba qadartu soo maaha wax ogaalkaaga ka baxsan maxaa loogu murgaa ama loogu farxaa wax aanad ujeedka laga leeyahay ogeyn soo sida ay kula tahay kama duwanaan karto ayay iskula xashaashaqaysaa goor dambe ayay maqashay codka Ilyas oo leh maxaa la aamusan tahay qaali maanta jawigu kuma cajabin miya jawigu wanaagsan yahay ayay kor ugu tiri iyada oo saluugsan hadalkiisa sidee qof aan kula joogin aamusnaantiisa ku ogaatay ayay niyada iska leedahay
in aabaheed uu nin siiyey iyo geerida jacaylkeeda xiriir kama dhaxeeyo waa isla doonasho waa isla doonasho sidaas ayay u muuqataa iyadase lama aha waxa madaxeeda ku wareegaya orah ay lahayd qoraayad Maraykan ah oo ahayd isla doonashada waxa ka dhaxeeya xiriir dahsoon waana xidido gunta iska haysta mar kale ayay ku fakaraysaa in ninkan dhinaceeda taagani uu ku lamaan yahay dhimashada gacaliyaheeda oo uu qayb ka yahay isbedel